ee shalay markii la ogaaday in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen hoteelka Naase Hablood labo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda ayaa howlgal ka dhex bilaabay hoteelka. ciidamadu waxay howlgalka ka soo bilaabeen dabaqa sare iyagoo hoos ugu soo daadegayay qaybaha kale ee hoteelka. dagaalamayaasha al-shabaab ee gudaha hoteelka ka dagaalamayay oo tiradooda lagu sheegay inay 5 ruux ahaayeen ayaa qaybaha hoose ee hoteelka ka bilaabay dagaalka iyo beegsiga dadkii ku sugnaa hoteelka gudihiisa. sida ay sheegeen dad la soo badbaadiyeyna dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay bamba ku tuurayeen qolalka hoteelka ee ay ku tuhmaan inay dad nool ku jiraan. ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay inay soo badbaadiyaan dad badan oo ku jiray hoteelka. dadka la soo badbaadiyeyna waxaa ku jiray mas-uuliyiin dawladeed iyo dad rayid ah oo dumar iyo carruuriba ay ka mid yihiin. dagaalka ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray hoteelka Naase Hablood qaybtiisa labaad ee Muqdisho waxa uu qaatay in ka badan 10 saacadood oo xiriir ah oo ay socdeen rasaasta iyo bambooyinka ay soo tuurayeen dagaalamayaasha al-shabaab. ciidamadii ku jiray hoteelka gudihiisa iyo kuwii banaanka hoteelka joogay ayaa mar qura ku baraarugay rasaas ka bilaabatay banaanka hore ee hoteelka oo u dhaxaysay ciidamadii joogay banaanka hoteelka iyo 3 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku dayay inay u baxsadaan dhinaca Boondheere, hase ahaatee ciidamada dawladda waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan 3 dagaalame ee isku dayay inay baxsadaan kuwaasi oo ay ka dhamaatay rasaastii ay ku dagaalamayeen. afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa sheegay in 3 iyo 15 daqiiqo ee aroornimo si buuxda loo soo afjaray soo gabagabay saacadu markii ay ahayd 3 habeenimo iyo rubi ama 15 daqiiqo sida uu yaqaano waxaan wadnaa sidii aan heli karnay daawacyada iyo dhimashada ay ka soo gaartay weerarkaas taga ma hayno tiro rasmi ah arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab. 2 ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan inay dadkooda ay yaalaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay. 3 waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. weerarka Naase Hablood qaybtiisa labaad waxa uu ku soo aadayaa 14 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii Muqdisho ka dhacay 14 bishan oo ay ku dhinteen dad ka badan 412 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 300 oo kale. weerarkii shalay iyo midkii 14 bishan ka dhacay Muqdisho waxa ay ka midaysan yihiin maalinta weerarka oo sabti ku soo aaday xilliga weerarku uu dhacay oo galab ahayd waxyeelada oo u badnayd shacab. waxa ayna ku kala duwanaayeen xajmiga weerarka oo midkii shalay uu ka yaraa kii hore. koox hubaysan oo qaraxa kadib weerar soo qaaday oo